dhulbaantana waxaan leeyahay dagaalkaasi dan idii maaha habar jeclana waxaan leeyahay dagaalkaasi dan idii maaha dagaal inan baa ku dhasha inan baa ku dhinta inan kuma dhasho colaad waa la qaxaa waa la dhintaa waa la hoogaa maal baa ku burbura ninka la yidhaaho qolkan aan ka hadlaayo leh ee t v-gan aan ka hadlaayo leh muuse la yidhaaho muuse jiisow falowga ha la siiyo waxaa weeye sheertana ha la siiyo leegtana ha la siiyo nabadgelyada daraaddeed aan ka hadlaayo ha lagu siiyo waxaan leeyahay soomaaliya gacmaha ha isqabsato dhallinyarada garxajis iyo islaadiinta garxajis iyo aqoon-yahanka garxajisee leh maanta dagaal iyo mashaakil iyo dhib baanu doonanayo odayaasha nabadgelyaan ku baaqayaa waxaan leeyahay dadka reer somalilan dagaalkii sokeeye inta joogta waa yarta dagaalkii faqashta intii joogta waa yarta markaa waxaan ku baaqayaa bulshada reer somalilan nabadgelyada ha la ilaaliyo midnimada iyo wadajirka somalilan ha la ilaaliyo santaleedkaygii markaannu eegnay muuse biixi wuxuu doonayaa iyo ina kaahin dalka inay dagaal ka ridaan dagaalka ay ku ridaan inay dalka haystaan weligood bay dhaha dagaal baa soconaya doorashaba inaanay qaban bal labadaa inoo kala doora laakiin maanta markaan xisaabiyey ilaa kimishiku markuu ku dhawaaqay ilaa maanta maan seexanoo waxbaan xisaabinayay inta inaga dhimata iyo maalka inaga khasaarooba iyo qaxa dhaca iyo dhibaatada dhaca kursiga de waxaa ku fadhiisanaya cabdiraxmaan ciriyo intuu wasiirra ka dhigto iyo agaasimayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan salaamayaa marka hore ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer somalilan baan salaamayaa sidaynu wada ognahay komishinkii doorashooyinku waxay ku dhawaaqeen inay soo horeyso doorashada ururada iyadoo sharci ay tahay waxa komishinku ku dhawaaqo aanay ka noqosho lahayn waxaan leeyahay ugu baaqayaa bulshada reer somalilan anigu waxaan aaminsanaa ciddii doonaysa doorasho madaxtooye inay dhacdo ayaan anigu ahaa laakiin markaan arkay in komishinkii go'aan gaadhay waxaan odhan lahaa dadka reer somalilanna komishinkaa loo hoggaansamo waayo muuse iyo inta ku xeeran iyo waxa weeye dadka waxa yar muuse dalka hadduu burburo siduu u soo kamaa way adag tahay haddii la qaxo siduu u soo kamaa way adag tahay muuse hadduu doorasho la qabto urureed waan hubaa in xusbiga waddani uu soo baxayo markaa waxaan ku baaqayaa bulshada reer somalilan nabadgelyada ha la ilaaliyo midnimada iyo wadajirka somalilan ha la ilaaliyo doorashada way imanaysaa wax la tiriyey haddii 10 sannadood ay tahay oo 1 iyo 2 la yidhaaho waa ayaamaha ha la sugo doorashada ururada ha loo diyaargaroobo ha la qabto doorashada ururada oo ha loo diyaargaroobo doorashada ururada ku soo baxa qolada waddani baan la hadlayaa xusbiga waddani ha ku soo baxeen doorashada waddani ha ku soo baxeen doorashada ururada way soo baxayaan oo aqlabiyad bay haystaan marka dambena ta madaxtooyada ha ku soo baxeen mar haddii aydan haysataan shacabina ogol dadina doonaya waxaad ii soo jeedin lahaa inaad u samirtaan waa ogtiin axmed maxamed maxamuud silaayo ilaahay cimrigiisa dheereeya caafimaadna allaha siiye doorashadii layidhi 80 baa lagaaga helay ee la istaba mariye waxba lagagama heline markii dadkii jahbadii iyo intii ku xeereeday inaan dagaalanno wuxuu idhi dalkayga iyo dadkayga dagaal iyo mashaakil gelin maayo maanta waxaan leeyahay cabdiraxmaan ciriyo xirsi xaaji cali oo aan taageersanaa oo aan lahaa doorashada ha la qabto haddii komishinka qaranku go'aankaa gaadhay ha loo hoggaansamo doorashada komishinka qaranka ha loo hoggaansamo doorashada ururada ha loo diyaargaroobo caqligu ha shaqeeyo santaleed baanu leenahay qoladeediina waa ogtiin santaleedkaygii markaannu eegnay muuse biixi wuxuu doonayaa iyo ina kaahin dalka inay dagaal ka ridaan dagaalka ay ku ridaan inay dalka haystaan weligood bay dhaha dagaal baa soconaya doorashaba inaanay qaban bal labadaa inoo kala doora in weligiiba muuse iyo ina kaahin dalka haysto oo labadaan ugu necebahay somalilanne iyo in doorashada ururada ay dhacdo oo a ku soo baxdaan doorasho xor oo xalaala haddii ilaahay idin soo saarayo waxaan leeyahay dadka reer somalilan dagaalkii sokeeye inta joogta waa yarta
dagaalkii faqashta intii joogta way yartahay dalkan wuxuu soo maray xaalado kala duwan dagaalkii faqash lala galay baa soo maray oo ilaa burco ilaa sibiley baan anigu lugeeyey anigoo yar oo 11 jir ah markaa waxaan leeyahay qax diyaar uma nihin maanta waa ogtiina haddii internetku dhaqaaqo ayaan madaxiina xanuunaanaa maanta internetkii baa dhaqaaqo xaaladdu caadi maaha xabad la ridaana xal maaha anigoon jeclaysanayn muuse iyo inay kaahin inay meesha sii joogaan anigoon jeclaysanayn xukuumadda uu hogaamiye muuse biixi cabdi inay sii joogto haddana waxay diyaar gareeyeen dalka inay dagaal ka ridaan weligoodna ay haystaan dagaalkana ay kula jiraan cid kastoo dagaalanta waxaan leeyahay siday doonayaan ha yeelina waddaday doonayaan ka baydha doorashada qolada waddani iyo cud yeela doorasho xolo xalaala gala ku soo baxa waddanka hogaamiya haddii ilaahay idii qoray laakiin maanta markaan xisaabiyey ilaa kibishiku markuu ku dhawaaqay ilaa maanta maan seexanoo waxbaan xisaabinayay inta inaga dhimata iyo maalka inaga khasaarooba iyo qaxa dhaca iyo dhibaatada dhaca kursiga da waxaa ku fadhiisanaya cabdiraxmaan ciriyo intuu wasiirra ka dhigto iyo agaasimeyaal dadka somalilan ku fadhiisan maayaan ummaddana ha dadka reer somalilan dagaal ummaddana ha qax ummadagalaha dagaal ummaddana ha qaxi ummaddana ha ummaddana ha buuqiyo qaylo waxaan leeyahay qolada reer abtiyaasha ah ee garxajis ama habaryoonis waanu arkaa waa laydinka khaldaya waddadii muuse doonayay baana la mara muusena dalka inuu dagaal ka rido dagaal uu ku haystaa buu doonaya ha marina waddadaa ha yeelina abtayaalo waddadaa ha yeelina maanta dulqaata baanuna leenahay doorashadaa suga ururada soo saara guddoomiyihiinna soo saarta ta dambana waxba kama dambayso ayaamay ka dambaysaa taa dambana ku soo baxa haddii ilaahay ka dhigo wixii la tiriya waa 1 2 3 4 5 inta odayaasha ah ee waxgaradka ah ee salaadiinta garxajis waxaan leeyahay wardee ninka fuulaya kursiga waa cabdiraxmaan cabdilaahi ciro idinku fuuli maysana madaxweyneyaal dalka ka noqon maysaan cid kalena fuuli mayso waxaan leeyahay dadka shacabka nabadgelyadiina ilaashada wadajirkiina ilaashada midnimadiina ilaashada haddii cid wax tarayso aniga adeerkay maxamed kaahin axmed shide axmed iyo kaahin axmed baana kala dhalay haddii maanta la yidhaaho waa dagaal baa lala gelayaa dagaalka kuwa la gelaya baan ka mid ahay waxa weeye haddii qabyaaladu wax tarayso adeerkay baa aniga wax tari lahaa qabyaaladu waxa laale ciday wax tartaa ma jirto nin waliba isagaa kursigiisa fuulaya nin waliba isagaa madax noqonaya nin waliba isagaa waxa weeye dalka hogaaminaya siduu doono ka yeelaya xaggana waxaa joogta kudliyad isku xidhan waddani xaggana kudliyad isku xidhan baa joogta oo heegaa waa heego qoladana waa heega isku xidhan waxa laalo wax inooga soo kordhaya ma jirto waxaan leeyahay ha loo diyaar garoowo doorashada ururada ha la qabto ninka la yidhaaho caqli waxaan ku ogay ururada nimanka ururada ninka la yidhaaho cabdilaahi darawal waa mujaahid gaboobay ninka la yidhaaho waxa weeye cabdilaahi dahab waa nin caqli badan oo aad u caqli badan waxaan odhan lahaa waxa weeye dhammaan aan ugu baaqayaa doorashada in la qabto ururada in la codeeyo in dadku nabadgelyada loogu baaqo in gacmaha la isqabsado dhallinyarada garxajis iyo islaadiinta garxajis iyo aqoon-yahanka garxajise leh maanta dagaal iyo mashaakil iyo dhib baanu doonanayo odayaasha nabadgelyaan ku baaqayaa soomaaliya waxay horumar u gaari weyday nabadgelyo darro cid allaale ciddii nabadgelyo darro wadda waanu ka soo horjeednaa haddaanu salaadiinta iyo waxgaradka iyo waxaweeye nahay nin garboodka dhammaan waxaan leeyahay soomaaliya gacmaha isqabsato nabadgelyada meel hay uga soo wada jeesato maanta alxamdulilaahi rabbilcaalamiin beertii nabaddaanu joognaa waa nabadgelyo waxa weeye dadku waa faraxsan yihiin waa 3 kilomitir dad baa isku sawiraya dad baa ku ciyaaraya dad baa waxa weeye meheradaha ka furan waa meel aad iyo aad u qaaliya waxaa leeyahay beerta nabadda ee muqdisho dadka reer waqooyiga aan aqoonna ha la yimaado beerta nabadda dadka muqdisho joogana waxaa leeyahay beerta nabadda waa meel nabadgelyaa waa meel fiican waa meel rudheello fiican ka furan yihiin waa meel lagu leydhsan karo waa meel aad iyo aad u qaaliya intaa waxaan ugu darayaa qolada hoteelka oo aan ka qabsado shir jaraa'idada aan ku qabto hoteelka ayaan leeyahay
هلا يمادو نينك اللي يداهو إن قول كنا كاد لا يله تي في كنا كاد لا يله موسى اللي يداهو موسى تشيسو فلو هلا سيو هلا حوي شيرتنا هلا سيو لكتنا هلا سيو nabadgelyada daraaddeed aan ka hadlayo ha lagu siiyo waxaan leeyahay soomaali gacmaha is qabsato cid allaale ciddii nabadgelyo darro wadda meele looga soo wada jeesto dagaalka ka bilaabmay ee maalintii dhawato nimanku ay ku dhinteen qurulugud agteeda meesha laag meegaag la yidhaaho waan cambaareenaya dhulbahantana waxaan leeyahay dagaalkaasi dan idiima aha habar jeclana waxaan leeyahay dagaalkaasi dan idiima aha dagaal inan baa ku dhasha inan baa ku dhinta inan kuma dhasho colaad waa la qaxaa waa la dhintaa waa la hoogaa maal baa ku burbura war waxaan leeyahay soomaali weynay gacmaha isqabsada nabadgelyada ilaaliya wadajirka ilaaliya midnimada ilaaliya insha allahu tacaala soomaali midana ilaahay baanu ka barina insha allah soomaali mida ayaanu ilaahay ka barina oo mar labaad cagaheeda isku taagta in la helo waxaynu u ololeynaynaa in isku ognahay soomaaliya ha israacdo ha midowdo soomaaliya mida mar dambe aynu aragno sidaynu ognahay 33 sannadood baynu somalilan ahayn laynama aqoonsan aqoonsigeennu wuxuu ku xidhan yahay dowladda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxaan leeyahay ergeyga gaarka ah ee la magacaabay wadahadalkii ha la derdergeliyo ha la mideeyo soomaaliya ha la mideeyo wadajir iyo midnimo meel looga soo wada jeesto